karno maxay ahayd dee waxa dhamaaday waqtigeedii baa dhamaaday inanta yani way dhimatay haa inantii halkaasay ku dhimatay. qisadan waa qiso aad u xanuun iyo murugo badan. runtii intaan qisooyin maqlaya qiso ka murugo badan ma arkin. qof walba wuxuu leeyahay qiso xanuun badan, taasoo haddii uu kaaga sheekeeyo aada ilmeyn doonto, balse mar kasta iyo mar walba ay kaala xanuun badan tahay qisadaadu, ay ka murugo badan tahay qisooyinka dunida soo mara. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta soo dhawaada. waa anigoo camaara, ninka ila fadhiyana waa wardi aadan. youtube-ka aada daawanaysaan waa walaalkiin camaar films and vlogs. fadlan haddaa ku cusubtihiin ay tahay markii ugu horeysay aad daawataan youtube-ka subscribe la saaro, haye like share comment intuu waa xaggeena. kolley waa aragtaan caawa halka waxaana soo fadhiisiiyey jawi kale ayaan ku jirnaa. kii qosolka maaha kii kaftanka, kolley kaftanku waa iska jiraa mar walba oo laga maarmaan weeyaan. waxaa ila fadhiya guddoomiyihii dadka jafi jiray wardi aadan. soo dhawo brother. aad iyo aad baad mahadsantiin. nimo markii koowaad aan kasoo muuqda camaar wuu jira muuqaalo horaan duubay laakiin soo muugelin baan filayaa mayo soo geliyay saaxiib markii koowaad maaha waa markii labaad. okay si wanaagsan. waa markii labaad aan kasoo muuqdo waan yara taaraxay iga raalaada youtube subscribe la saaro, muuqaalka hala like gareeyo. wada aragtaan dareenkeenu lama soo koobi karo. sax emotional title-kad ka arkaysaan kolley aad u weyn. marka waxaa nagu dhalatay inaan idinla wadaagno aan qarin kari weyno maxay qisadan aadka u qiirada badan leh ee ku dhacday walaal ka mid ah walaaladay, waliba asxaabta noogu dhadhow. haa marka qofkaas maxay ahaday qisadan dee horta wuu iiga sheekeeyey. marka waxaan ka codsaday caawa wax yar ka hor inaan qisadaa ka sheekeeyo. ii ogolow baan ku yidhi, laakiin wuxuu dhahay soo magacaabin. markaa kuma magacaabin. haa intaan soo saarnay kolley intaa mid kamid weeyaan. marka qisadan waxay ku dhacday horta labada qof kolley si kastay ahaato wardiyo meel bay isku bartaan. waxaan jeclaystay qisada inaanan keligii ka sheekeynay inaad i ag fadhido anigu aan kaa guraday si wanaagsan. anigu dareenkayga si dadku ay u arkaan kan qeyrey sida jibaysan si wanaagsan. marka qisadaas waxay ku bilaabmaysaa labadan qof ee lamaanaha kolley marka koowaad meel bay isku arkaan labada qof oo isma jeclaadaan keliya hawada la iskama jeclaado ee qofka aragtida lagu jeclaan karaa, wanaag uu ku sameeyaad ku jeclaan kartaa. marka labadan qof waxay isku arkeen meel kamid a meelaha ugu caansan ee Somaliland haday noqoto wadada jacaylka ama maxaa la odhan jiray casho iyo calaf. sama casho iyo maxay calaf iyo casho wadada dheer wada hormarta road number 1 baa la lahaa kala soomta agteeda. halkaas labada qof isku barteen kolley sidii laba qof isku baran jireen way isweydaarsadeen hadaladii. horta si qurux badan bay inantii usoo dhaweysay inanka mar walba ninkaa dhiiranayay dee markaas qurux badan bay usoo dhaweysay maasha allah wuu ku farxay soo dhaweynteedii haladeedii. qofkii isagoon ka fiirsan markaa inay xaas leeday mu weydiin mu weydiin keliyaata nambarkeeda iyo magaceeda weydiin. markuu xaafadii tegay wuu la hadlay way is wareysteen. walaaltinima la isku baranaya inta hore kolley laguma degdego. markii dambe wax uu walaaltinimadii socoto xiriir jacayl buu isku bedelay oo kolley baahida aad qabto marunba soo bandhiganaysaa. haddii aan caawa gaajoonayo mar aan ku idhahdaba warino mar aan casho tagnay dee waan casho tegina. markaa baahidiisii qofkuu soo bandhigtay jacaylkiina wuu u bandhigtay sidiisi leeg qofkii waxay usoo dhaweysay si wanaagsan bay usoo dhaweysay. haa wuu ku farxay muddaa xiriirkii la waday. meelo badan baa la isku mid waxa yidhi waqtiyada qaar waxaa xasuustaa uu yidhi waxaa ka mid ah maalmaha ka mid a waxaa nagu dhacday buu yidhi inay iyadu i ballamiso. waxaa dhici jirtay buu yidhi inta badan de qofka inaad adigu ka dalbato ballanka. farxadda horta ay wada qaateen aad bay u fara badnayd, laakiin maalmihii ugu cajiibsanaa weeyaan maalinkani wuxuu yidhi waxa inay ballamisay inantii ay ugu tiri maxay aan isku imano. maalinkii oo dhan waxyaabo badan buu isweydiinayay inuu maxaa dhacay maanta way ku ballamisay wadfa aad buu farxay dee. dhaqan ahaan Soomaalida waxay iska leedahay inuu ballanka uu qabsado goormayna kulanaa markaa markay ballamisay maalmaha kamid waxay dhacday inay farxad la wadaagto. qisada waan soo koobayaa kama wada sheekeyn karayo asxaabta inay caajistan diidayaan. waxaa dhacday inay arrin farxad la u sheegto horta dhinacna murugo kale. iyada ahaan marka loo eego arrinkaas farxad uu leeyahay mustaqbal ahaanna faa'iido uu leeyahay labadoodaba. laakiin isaga
waxay ku tahay kala fogaansho iyo kala dheeraansho la kala dheeraanaya haa maalinka waxay u sheegtay inay heshay fiise ay u baxayso maxayday waddanka dibaddiisa maxayday ay dhoof u soo baxay ay sugaysay wiilkii markii uu arrinkii maqlay horta waa niyad jabay waanu farxay qofka markaad jeceshay horumarkiisa waad ku farxaysaa laakiin haddii aad maxayday ay kaa tahay isla joog iyo dee waqti wada qaadasho ma doonayso qofkaas laakiin qofka marka aad si dhawa u jeceshahay si kastuu kaaga fogaado maxayday waa haa halkiisii unbuu ahaanaya waanaad ku farxaysaa horumarkiisa marka qofkan farxaddiisi uu ku farxay laakiin uu yar qiirooday macnihii ka fogaanshaha ay ku fogaanayso ayuu yaro qiirooday isagoo faraxsan oo ilin ka timid ayuu yidhi xabiib aad baan ugu faraxsanahay maanta inaad maxayday dee horumar gaadho ood mustaxayday hayaan ka mida guulaha nolosha inaad maxayday dee maanta kusoo baxdo insha allah waxaan rajaynayaa inaad maxayday dee si nabada ku tagto adigoo maxayday mustaqbal wanaagsan dhistay anna aan dadaalay aynu iskaashano aan iskacan qabano inagoo mida aynu maxayday dee guul gaadho ayaan rajaynaya hadafku intaasu inaga haan yani ha si kastay ahaato farxaddii way qaybsadeen waxaa dhacday in maxayday halkii ku kala dhaqaaqeen ها ما kala tagin markan macni meeshii ay ku kulmeen bay ka kala tageen ha qof walba xaafadii uu tagay waxa dhacday in la iswareysto oo la iskaftamo marka uu ku beegan yahay faleedkii bari ma haysaa dambo kale tuurku go'ay ha tigidkii uu go'ay ayaa waxa dhacday wiilka wuxuu jeclaystay sida dhaqanka inuu ay maxay qofkii farx uu ka farxiyo oo ha surprise sameeyo habeenada kamida waxa dhacday xaflad uu qabtay xafladiisa qurux badan bay u dhacday sabotin xafladii markii ay dhamaatay waxaa dhacday labada qof ay guri kala tagaan sidii caadada u ahayd way wada sheekaysan jireen waxba yaanan sheekada ka boodin waxaa jirta marka waxaa jira dadka qaar markay sheekeynayaan say u sheekeynayaan seexda marka inantu waxay ahayd dadka markay sheekeynayaan hurdadii baa maxayday dee ay qofka jiidataa waxaa dhacday markii xafladii habeenkii dhamaatay ay kala tageen inuu la hadlay haa waqti badan markay qaateen ay in badan wada sheekaysteen waxaa dhacday in maxay sidii ha may gamac kani maaha waa gamac dheer ma odhan karno maxay ahayd dee waxaa dhamaaday waqtigeedii baa dhamaaday inanta ha inantii halkaasay ku dhimatay iyadoo la hadlaysa ay naftu ka baxday bacdeen wiilku wuxuu u haystaa sidii caadada u ahayd ay seexatay isagoo faraxsan ayuu seexday oo dhoola cadaynaya oo le maxay ahaday dee aad baan ku jeclay xabiibi hadaladii dee ha noloshaydii waan ogahay inaa seexatay laakiin waxaan dareensanahay in maxay ahaday dee qalbiga aad iga dareemi doonto aad baan ku jeclay habeen wanaagsan sidiibuu ku seexday ereyadii macaanaa ee la isweydaarsanayay ayaa maxay qalbigiisa kusii jiray markii sidaa naftii kaga baxday gabadhii waxaa dhacday subaxdii inuu soo kaco xilli hore taleefonkeedii buu wacay wuu xidhayay taleefonkeedii wuxuus yidhi madaarkii bay kaa hortagtay hurdada markaa la tegi doonta isaga wuxuu soo kacaya meelaha cabaara 7 markii saacaddu ahayd iyaduna faleedka waxay duuleysay waxay ahayd 6 ha iyo kulli markaa marka 6 qofku duulay ugu dambeyn waa dadka la sugitaanka inuu sii kaco wata aduu ay sii kacday xilligii wuxuu rabay inuu markaa xilli hore qaraaco markaa cabaara 7 markii ahayd uu soo kacay nambarkii buu wacay wuu xidhan yahay iska muuqasin wuxuu yidhi way baxday ama safarkii bay gashay taleefonkeedii noo saxday sawir ka mida sawiradeedii buu soo qaatay wuxuu kusoo qoray xabiib allaha ku nabadgeeyo horta ku leeyahay social media ha wuxuu kusoo dhigay allaha ku nabadgeeyo wax yar kadib dadka replay waxa uu soo galay replay maxaad ka wada hadalka qaar ilaahda iyo qaar si caadiya ugu sheega hiblaayo sidan way dhimatay de qof wax uu soo qoriyay hadallo kala duwan qof walba wuxuu soo qoriyay maxaad ka wadaa maxaa kugu dhacay sidoo hadlaysaa ma damiir lahayn ninka isagiisa oo maskaxdii uu train uu yaabay de uu wareeray waxaa dhacay waxaan la soo qoriyaa bacdeen stateskiisu soo rogay
wuxuu wada arkay sawiraanteedii oo dhammaan asxaabtu wada tacsiyanayso. Wuxuu sameeyey garan waayey, aad buu u yaabay. Markaa aduu wiilkii waxaa dhacday inuu dee markii xaqu timaado dee kolley wax mala aha, qofkii ma soo celin karaysid. Inuu maxay ahayd horta samro inta koobaad niyadiisa geliyay taasay ahayd. Waxa kaloo dhacday in maxay ahayd ay ku dhacaan waxyaabo kaloo aad u fara badan. Qofkii inuu maxay ahayd isbedel noloshiisii ku timaado. Marka la isbarbar dhigo comparison lagu sameeyo noloshiisii hore iyo tan hadda ay laba level kala yihiin. Waxaa dhacday inuu haddaba qofkii siduu maxay ahayd u samreeyay oo iskugu adkeynayay maalin walba inuu samro, maskaxdiisa ku soo noqonaysay hadalladii farxad. Qofka bini aadamka waxaa jirta wardiyo waxaad ilaawi karaysaa markii ay jacaylkiina soo dhamaado uu ku yiraahdo xiriirkeena halkaas ku eegay runta ku sheego. dambeysay ay isweydaarsadaan baa ahayd in yani seexato kale in xumaan kuma kala tegin. Ilaahay baa intaa ku soo qoray. Marka waxba ku dheeraan mayno, waxaan rabaa inaan maxay qisada haddii aan isku dayi karo xataa qofka inaan halkan soo fadhiisiyo maalinka dambe inaan soo fadhiisiyo waxa uu la kulmay iyo waxyaabaha uu ku dhacay. Marka waxaan qisadan uga aamus waayey inaan maxay murugada la qaybsano walaalkeen oo maxay la wadaagno aan muujino inaan maxay jecelnahay. Kulli commentigan ugu soo muujin doonaa muuqaalka daawashadiisa oo kale like fara badan na saartaan. Kulli dhiirigelin bay intaasna noo tahay anaga iyo idinkaba iyo isagaba. Marka commentiga ayaan kula wadaagi doonaa maxay walaalkeen murugada. Waxaan ogahay in dadkan Soomaaliyeed inay xiiseeyaan qisooyinka jacayl. Sax. Waxaan boqolkiiba boqol ku kalsoonahay muuqaalka horta muuqaalkii ugu saameynta badnaa qof aan la doorantiin. xaqiiqatan Amaaro anigu intii aan barnaamijka duwaday oo dhan ama sheekadaas waday anigu hoosii qalbigan ka ooyay moogtay. Sax. Way anigu runtii waan aaminsanahay jacaylka boqolkiiba boqol Soomaali karan. Marka waxaan leeyahay horta ilaahayna ka qalbiga ha u reebo kulli wali ana marxaladu ku sugan yahay dawin ognahay inagu mar hadayna relationship oo xiriir dheer inaga dhaxeeyana ka waan ognahay ma jeclin inaan qisada inta ku soo afmeen. Waxaan doonaynaa in qisada halka ka sii wadno qisaduna insha Allah seasons badan bay yeelan doontaa. Haddii kulli sataan insha Allah way soo wadi doontaa. Jacayl oo yani inta aan ku soo koobi karno ma aha. Waa bahal daba furan oo dheer runtii Soomaa. Macni cabirka iyo inta ugu qiiraha badan la hadda idin soo qaadan. waxa xataa dhacdo waxyaabo kale oo intan ka fara badan oo ka murugo badan haddii ay maqlaan ay laga yaabaa in intan haddii ilmeeyeen qaarkood ay kasii ilmeeyaan. Marka insha Allah tacaala ku dheeraan mayno muuqaalka wad aragtaan jawiga uu isbedelay. Haddii aan sii fadhino waxa laga yaabaa inaan anagu sii galno ama iska oynaba. Marka intan kulmayno muuqaalka xiga waxay keenaysaa sidaas iyo amaana Allah nabadgelyo. waxaad xiiseynaysaa kulley maxay u dhimatay wiilku halkuu dambeeyay dhaawac intii leeg ayaa soo gaadhay ma ilaaway ilaa hataa murugadii ma ka baxay baartiga dambe insha Allah ayaa idin soo tabin doonaa intaas oo dhan.